gudoomiye cusub ee la soo magacaabay xafiiska xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Cabdilaahi Axmed ayaa maanta si rasmi ah uga la wareegay gudoomiye hore ee xafiiska Sahal Aadan xaflad ballaaran oo loo sameeyay xil wareejintan oo ay ka soo qayb galeen hogaanka sare ee xisbiga kulmiye madaxda gobolka mas'uuliyiin taageerayaasha xisbiga iyo marsharaf badan ayaa lagu qabtay Hotel City Plaza ee magaalada Burco xafladan ayaa waxaa dad kala duwan ku jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga gobolka madaxda gobolka iyo mas'uuliyiin kale waxaana kamid ah hadaladoodii waxaan idinka codsanayaa maanta haddaad si wanaagsan ii amba bixiseen oo ii sagootideen oo calanti iyo saca badan ii tunteen mid baan idinka codsanayaa labada xafiis isu soo rara xafiisku keena waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudoomiyihii gobolka Togdheer Sahal Aadan Maxamed ee iga horeeyay xisbigan isagoo ah runtii ninaanu in badan soo wada shaqaynaynay sida quruxda badan xafladan aanu soo agaasinay qaybta u weyn isaga lahaa agaasinkeeda waxana laga rabaa oo aan ka rabaa inaad ila shaqayso waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub Xasan Cabdilaahi Axmed waanu kula shaqaynaynaa sida walbaanu u shaqaynaynay ayaa haddaanu nahay haweenka gobolka Togdheer aanu kula shaqaynaynaa halkan maanta aynu isugu nimi waxa weeye xaflad ay xilka kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha cusub anagu ilaahay waxaan kaaga baryeynaa in ilaahay xilka ku waasto waxaan ilaahay kaaga baryeynaa in ilaahay xilka ballaaran ee lagu dhiibay ilaahay kugu asturo innakana waxayna ku waajiba haday haweenka tahay haday dhalinyarada tahay haday odayaasha tahay inaynu la shaqeyno diyaar baan inaynu la shaqeyno ka gobol ahaan waxaanu ballan qaadaynaa in wixii xisbigu nooga baahdo aanu gacan buuxda kugu siino Xasano gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa u hambaliyay maamulka cusub isla markaana sii wadacay maamulkii hore marka ugu horeysa waxaan hambaliyaynayaa waxaan bogaadinayaa Sahal Aadan gudoomiyihii hore ee gobolka muddadii uu xilka xisbiga hayay inuu ahaa nin ku filan oo si fiican xisbiga hawshiisa u soo waday gudoomiyaha cusubna waan ku soo dhaweynayaa xilka waxaan leenahay Allah ha kugu asturo annaguna waanu kula shaqaynaynaa xafladan oo mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay garabka haweenka xisbiga ee gobolka Togdheer madaxda ururka Now uqaal mas'uuliyiin iyo wax garad badan kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay maamulka cusub ee loo soo magacaabay xarunta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Kays Axmed Dagaale Hon Cable TV Burco.